السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا والله يقيمة يا غاية البلد كسودي بولد على ذا كسودو هذا برنامجنا إن شاء الله تعالى. برنامجنا حتى يسهل لنا سبسكرايبتا وكل منا لايكتا داير بتنس كسر داوشة علاش أنا جاي لنا صاحبي إن شاء الله تعالى. برنامجنا ما تحوي nolosha oo laga dhaco maxaa sababa in nolosha laga dhaco maxaa sababa sababaha maxaa ka iman kara qofku inuu nolosha ka dhaco maxaa sababa marka labaad hadduu qofku nolosha ka dhaco maxaa ka iman kara qodobka koobaad nolosha inuu qofku ka dhaco waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah balwad inaad balwad xun barato ama khamri barato ama balaayooyinka kale la sheegay barato waxyaabo xun inaad barato ayaa maxaa nolosha laga dhacaa. marka waxyaabaha xun haddaad isticmaasho biliis noloshaada fursad chance badan baad weli haysataa. nolosha intaada dhimanin ee qabri aan lagu dhin chance baa haystaa. sharaftaada chance haysata, jiritaankaaga chance haysta, noloshaada dhan horumarkaaga iyo inaad maxaa dhahaa nice future inaad dhisato ayaa maxaa dhahaa ama mustaqbal wanaagsan inaad dhisato ayaa chance haysta. marka haddaad balwad xun leedahay biliis aday kuuma roono, annaga nooma roono, muslimiinta nooma roono, mustaqbalkaaga iyo dadkaaga iyo ehelkaaga familkaaga iyo noloshaada dhan bay u roonaan iska daa. oo waxyaabaha nolosha laga dhaco ee qofka xitaa dib uu soo noqon. qofka darajada labaad waxaa weeye qofka inay murugo xun ay ku dhacdo. qofka hadday murugo xun ku dhacdo cid ka caawisa oo ka garab istaagtana uu waayo. run ahaantii waxyaabaha waxaa ka mid tahay qofka la waasho istarayska xun, nolosha oo maxaa la dhahaa kuga adkaata, faqriga oo maxaa la dhahaa ku daa'ima, waxyaaba badan. laakiin qof badan oo faqir ahoo xayaato tayibaha ku nool baa jiro qalbigiisu nool yahay. laakiin inay maxaa la dhahaa murugo aad u adag kugu dhacdo, musiibo hal mar aad jug kugu tiri oo kaleeto ayaa ka mid ah. laakiin waxyaabaha aad kaga baxayso ilaahay subxaana wa tacaala inaad kaashato, inaad aaminto noloshaada shayga kaa burburay inuusan shaygaas oo keliya ahayn. haddaad milyaneer tahay oo hal 10 milyan oo lacag intii iskoola lagu qabto lagaa qaato, nolosha waad dhisi kartaa. brother ama sister ifaham please understand me. haddii aad halka 10 milyan yaa sameeyey adigaa sabab ahaa sameeyo akartidaa iyo ragnimadaada ku samaysay, haddana waa haysataa, waayo waa isu dilaysaa, waa isu moral jebinaysaa. wax walba you can do, wax walba waa qaban kartaa. marka murugada xun oo kaleeto waxaa weeye waxyaabaha nolosha qofka kamid ay ka mid tahay. qodobka saddexaad waxaa weeye hankaaga ood ka hoos dhacdo. qofka han buu lahaa, waxbarasho ku hanweynaa, inuu maxaa la dhaha waxyaabo badan samayn karo aaminsanaa, laakiin waxaa weeye hadafkii uu lahaa iyo nolosha wuxuu kaga fikirayay ayuu hadafkiibuu gaari waayay, ama dhaqaale la'aan u gaari waayo, ama xanuun baa ku dhacay, waxyaabo badan buu gaari waayo. waxaa weeye qofka inuu nolosha ka dhaco waxyaabahaas sababay ka mid tahay. marka haddii aad hadafkaaga gaari weyday brother inta aad gaadhay ayaa kugu filan, intaasaa kaa badan. because of qof walba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qoray ayuu maxaa la dhahaa ayuu ku socdaa. الرزق بقدر المقدر، الرزاق وانت لو قدرك، نلصنا وانت لو قرك. نمشينا على خطوات كتب لنا ابو سيدنا علي. طلابين لي نقرا وكسعنا مرغدو اسكما كادخين طلابه لو قري oo samaawaad kan iyo dhulkan la sameeynin lagu talagalay inay kugu dhacdo ayaa kugu dhacay. marka please sabir oo ilaahay ka shaqo. qodobka saddexaad mise afraad aan leeyahay, qodobka afraad waxa weeye dadka oo wax xun inaad tahay ka aamin. dadku haday ka aaminaan bad man inaad tahay, bad woman inaad tahay, bad girl inaad tahay, bad boy inaad tahay, waxaa weeye haddii shakhsi xun inaad tahay haday ka aaminaan run ahaantii kolka dambe qofku waa tafaawulkaasi uu tusqaadaa uu noqdaa. marka waxaa weeye hadday dadku kaa aaminaan wax xun inaad tahay waxaa tahay waa tahay. haddaad xun tahay waa xun tahay, haddaad san tahay waa san tahay, haddaada xun iyo san aad dhexdhexaad ka tahayna dhexdhexaad baad ka tahay. marka dadka fikirkooda dadka qof walba ha la tashanin, dadka ha israacraacinin. waxyaabaha maxaa la barnaamijyadeena dambaan kaga hadli doonaaye nolosha aas-aaskeeda qodobka koowaad waxaa ka mid ah inaad dadka fikirkooda adigu aad ku fikirto. adiga dadka fikirkooda maxaa kaa galay, waxay kaa aaminsan yihiin maxaa kaa galay. dadka adu fiicnisa wanaag samee, laakiin iyagu dadku waxay aaminsan yihiin ha aaminin inaad tahay. waxyaabaha ka iman kara waxaa ka mid ah soo gabagabeeyey waxaa ka mid waxyaabaha ka iman kara qofku hadduu maxaa la dhahaa uu nolosha ka dhaco, hadduu qof arkan dhibaataysan inuusan u naxariisanin, hadduu arko qof dhibaato ku sugan inuusan dhibaatada ka caawinin, hadduu bal arko nolosha inuu maxaa la dhahaa dadka dhan inuu cadow ku noqdo. waxyaabaha qofka dadka cadowga ku noqdo noloshooda ka mid ah waxaa dhaweeye qofku inay dadku xumeeyaan
ina qofka si xun loo fasiro si xun loo caayo mar walba la liido waxa laga yaabaa maalinkuu jaanis helo inuuna qofnoo naxariisan kuwa xabaglayaasha hadda jidka laaka aad ku dhaafayso kuwa maxaa la dhahaa baalashlayaasha kama inta ku baalashan aad garabka kaga istaagayso waxa weeye waa dad bini aadam oo dhankan adigoo kale weey biliisa ku sameeyay waa qof nool rajo kale nolosha hadaf kale qofkaas hadduu jaanis helo marka qofna ma cafinayo qof walba wuu dilaya qof walba wuu caayaya qof walba wuu soo xumeeya qof walba wuu xumaynaya isaga waa qofkaas xumaysa hadii inuu ku xumeeyaa fajzaaw sayyi'atu mithla laakiin qofkii wanaagsan ee wanaag uu soo barbaariyay la soo tarbiyeeya garanaya faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah qofkaas tanaasulka iyo dulqaadka iyo deeqda iyo kaleexashada iyo samirka garanaya marka insha Allah ta'ala barnaamijka waxa weeye intaas uu ku eegyahay subscribe share like hanaga iloobina salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh